waxay xasuusisaa mararka ay dhallinyaradeena qaar taageerayaasha oo xisbiga kulmiye ay leeyihiin muuse ay leeyihiin waxay xasuusaa duuje ayaa lagu odhan jiray Benito Mussolini Mussolini marka la sheego Muuse Biixi hadda wuxuu noqday muusihii dadka xabsiga liinta ku cabsin jiray arrintaasi waxay u dhigantaa arrintii Benito Mussolini iyo xisbigiisa faashistaha ay sameyn jireen bariyahan waxa maqlayseen liinta waxa la yiraahdo xarkaha liinta magaca madaxweynaha waa Muuse waxaa jiri jiray nin qarnigii hore dhaafay ka shaqeyn madaxweyne ka noqday wadanka Talyaaniga ninka waxa la oran jiray Benito Mussolini wuxuu ahaa nin la dagaalamo dimuqraadiyadda oo aad iyo aad uga soo horjeeda wuxuuna aaminsanaa in xukunka isaga gacmihiisa lagu soo ururiyo dadka isaga taageersan wuxuu oran jiray cid aan idinka ahayn waxay ka soo horjeedaa qarannimada dalka waxaanay burburinaysaa midnimada dalka iyo dadka Talyaaniga wuxuu oran jiray cid kasta oo fikradiisa ka duwan waa cadowga dalka waxa ogtihiin bariyahan inay socoto qof kasta oo fikradda madaxweynaha ama fikradda xisbigiisa ka soo horjeeda inay tahay cadowga dalka xataa haday yihiin dadkii u tartamayeen wadankan madax ka noqdaan iyo dadkii ka soo shaqeeyay waxaad ogtihiin had iyo jeer in la yiraahdo SNM iyo wadankan waa loo soo dhintay hadii dadka muwaadiniinta ay cawdaan la yiraahdo ma ogidin wixii wadankan loo soo maray iyo ma ogidin dawladdiisa aad bar waxay sameyn jirtay waa ku farxi lahaydeen ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa xaaladayada arrintaasi waxay u dhigantaa arrintii Benito Mussolini iyo xisbigiisa faashistaha ay sameyn jireen dawladdii aynu dhisanay waxaynu ku heshiinay in si dimuqraadi wax loo soo doorto nidaamku dimuqraadi ahaado dadka shacabkina cid ay doonayaan si nabadgelyo u doortaan waxaad moodaa in lagu soo ururiyay central government iyo powerful maxay hayto members of xisbigan meesha ka taliya uu haysto waxaan sheegayaa SNM wadanku ma laha keligii wadanka waxa laga soo dhisay dadkii SNM taageersanaa iyo dadkii ka soo horjeeday oo ku walaaloobay shirkii burco ku heshiiyay inay nabad wadankooda ku maamushaan ku heshiiyay inaan cadaalad darro wadanka ka dhicin ku heshiiyay in diinta islaamka lagu dhaqmo intaas oo dhanba dawladda gacmaheeda ku qaadatay waxayna kala hortagtay dagaal waxayna hadda ku dhaqmaysaa dictatorship sidii faashiska oo kala waxay xasuusisaa mararka ay dhallinyaradeena qaar taageerayaasha oo xisbiga kulmiye ay leeyihiin muuse ay leeyihiin waxay xasuusaa duuje ayaa lagu odhan jiray Benito Mussolini Mussolini marka la sheego Muuse Biixi hadda wuxuu noqday muusihii dadka xabsiga liinta ku cabsin jiray waxaad eegi doontaan taariikhda Mussolini waxaana arki doontaan inay la mid tahay taariikhda xisbiga kulmiye iyo taariikhda uu ku dhaqmay maanta madaxweyne Muuse waa Badir Maxamed Xuseen Badir